بسم الله barnaamijkeena waxaan ku xusi doonaa maanta xilligii uu Abiy Axmedka Itoobiya yiri deged haddii aan ku weyno nabad xoog ayaan ku raadinaynaa muddo laga joogo 4 sano ee hay'adna qiyaastii 2019ka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa daabacday qariirad ay ku muujinayso Soomaaliya iyo Itoobiya oo la isku daray kadib markii dad badan qayqayliyeen raaligelin ayay ka bixisay waxayna sheegtay inaysan ogeyn sida ay qariiradaasu ku soo gaartay wasaaradda looguna daabacay website-keeda muddo kadib waxaa la soo wariyey in Itoobiya ay dhisayso ciidamo badeed ayadoo la ogyahay inaysan bad lahayn Itoobiya kadibna ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa laga soo wariyey inuu yiri deked haddii aan ku weyno si nabad ah xoog ayaan ku raadinaynaa laakiin maalin dhow ayuu hadalkaas cadeeyay waxa uu jeediyay khudbad dheer oo isugu jirta hanjabaad sasabasho iyo carab laalaadin khudbadaas waxyaabaha uu ku sheegay waxaa ka mid ah in ay Itoobiya raadinayso dekado fara badan oo ay ku jirto Saylac waxyaabaha uu ka dhawaajiyay waxaa ka mid ah ninkaas in Saylac asal ahaanba ay Itoobiya lahaa jirtay taariikh ahaan waa hore in boqortooyo Itoobiya ah ay ka tali jirtay Saylac iyo meelahaas hadalkiisu aad ayuu u dheeray laakiin waxaan rabaa inaan ka soo qaato pointigaas ah Saylac annaga lahaa jirnay iyo deked haddii aan nabad ku weyno xoog ayaan ku raadinaynaa waxyaabo badan oo kale oo laga soo qaadan karaa jira khudbadaas oo ay ka mid tahay in dadka Itoobiya sanadka 2030 ay noqon doonaan 150 milyan bad la'aanna aysan macquul ahayn inay Itoobiya jirto Itoobiya inay doonayso inay noqoto super power Africa ah laakiin bad la'aan aysan noqon karin laakiin hadalka qaybta aadka aan uga yaaba ayaa ah Saylac boqortooyo Itoobiya ayaa ka tali jirtay sheekadaas soo uma eka sheekadii Israa'iil oo ahayd 3,000 sano ka hor ayaan deganaa jirnay dhulka Falastiin haddana xoog ayaan ku qabsanaynaa xaqiiqdii qof kasta oo aqli leh markuu eego waddanka Soomaaliya oo haddii meel dunida ka mid ah lagu tilmaami karo janno lagu tilmaami karo waddanka Soomaaliya haddana aad eegtid dadka Soomaalidu sida ay yihiin iyo sida ay ayagu isugu jeedaan oo cadawgooda u jeedin waxyaabo macno daraan ay ku dagaalamayaan qof kasta oo aqli leh wuu dareemi karaa in maalin maalmaha ka mid ah waddankaas uu faraha ka bixi doono laakiin dad badan waxay isweydiinayaan oo aniga aan ka mid ah ma inta aan nool nahay ayaad arki doontiin arrintaas xaqiiqdii anigu arrintaas waa ku baraarugsanaa laakiin in ay sidaan u soo degdegayso u malaymayn